runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay halkan ay maanta noo marayso arrimihii galmudug ka socday oo uu joogay muddada 40 maalmood ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayay sida wasiiradu sheegeen wax badan baa noo hirgalay waxa ka dhimanayna noo dhamaystirmaan yaan ilaahi ka rajaynaynaa subxaanahu wa ta'ala sida ugu wanaaga badan waxaad ogtihiin waxyaabaha qabsoomay waxa ka mid ah ciidamadii galmudug ee halkan joogay iyo degmooyinka kala gedisan in lagu daray ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda ay yihiin ciidamo federaal ah shaqaynaya la isku duway ay ka shaqeeyeen wasiirka amniga federaalka Soomaaliya iyo wasiirka galmudug amniga u qaabilsan isaguna aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa sida arinta ay isaga xil saareen oo baahidii loo qabay ay u dabooleen aadan ugu mahad celinaynaa in inta la isku daro ciidamo federaal ayakoo ah lagu wareejiyo amnigii oo maanta gacanta ay ku hayaan caasimadii galmudug iyo intii hoos imaanayso dhan amnigiina oo aad iyo aad u sugan yahay wasiirka amniga sida uu hadda idin sheegay la iskuna hadlay karo cid kasta oo ka tirsan galmudug cid kasta oo dadka gacan siiya ama hay'adaha noqoto ama inta ku faraxsan oo dhan ha noqotee gobashii ay u taalo ayna u goglan tahay ayna u diyaar tahay caasimadu in iyo dadkeeda ahalkeeda oo galmudug ah inay soo dhaweeyaan gacmo furan ku soo dhaweeyaan nabad ku soo dhaweeyaan waxay ku naaloodaan ay meeshaas ka aasaastaan ciidamadii sharafta lahaa ee arrinka loo igmaday waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu la garab galo horana waa ogtihiino meelaha Soomaaliya ugu amniga badan bay ahayd halkani haddeer ciidamadii sugi jiray iyo ciidamadii federaalka iyo ayakiyo la ciidameeyay oo la qarameeyay mar hadday gacanta ku dhigeen waa adkeyn haddana la sii adkeeyay waxay muujinaysaa in la isku hadlayn karo oo ay ka marqaati yihiin dawladda federaalka iyo maamulka galmudugba in gobashii meel nabad ah la dhigay ummadiina loogu yeerayo ayna ayahooda uga tashadaan waxaan rajaynaynaa guul iyo gacmo furan inay ku soo ku gaaraan rajaynaynaa sida wasiirku uu sheegana mas'uuliyadii hadda ciidamada federaalka la isku daray ayaa qaadaya wasiirka amniga ayaana u fadhiya federaalka ayaa u fadhiya waxaan rajaynaynaa inay ku guuleystaan annaguna wax kasta inooga baahdaan garabkoodan taaganahay waxa mar hadii lagu wareejiyo mas'uuliyadii waxaan rajaynaynaa ciidamo kale oo ajnabi iyo waxaas in loo baahnayn ayaan rajaynaynaa oo markaas yani amnigii waa loo baahan yahay hadii loo baahan yahay hadeera meesha laga sheegi lahaa marka waanaan idin sheegaynba waayo baahidii waa la daboolay dawladda federaalka ayna marqaatiga ka taa annaguna marqaatiga kana gudiguna marqaatiga ka yahay marka aad iyo aad xagga amniga waa sidaas xagga ciidamka la isku daro waa sidaas waxaan rajaynaynaa guul iyo gacmo furan aan rajaynaynaa gudiga yani dib u heshiisiinta waa u mahad celinaynaa dadaalka dheeraadka ay sameeyeen iyo juhdiga ay bixinayaan aadan ugu mahad celinaynaa aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa waa inay halkooda ka sii wadaan taaba lagu gaaraa tilaabadooda sida ay u qaadeen waa uga mahad celinaynaa haddana inay yani wax alla wixii caqabadaha hor yimaada inay dulqaad sameeyaan ilaa ay ka gaaraan darajada yoolka ay ka gaaraan xildhibaanada heer deegaan oo halka fadhiya iyakuna oo ka gacan siinaya arrimaha doorashada ama dib u heshiisiinta iyakana waa u mahad celinaynaa runtii gacmo wada jiray wax ku gooyaan haddii geesaha laga wada galo markaas ayaan goolka godka ku ridaynaa haddii allaydno haddii laakiin qolo ay geeska istaagto xoogaa
waxaad moodaa maalan ama si kale ay u shaqeeyaan waxaad moodaa xoogaa dhib inuu noqonayso isku si inaan u shaqeynaa isu dardaarmaynaa sidii galmudug hore ugu socon lahayd ay guul u gaari lahayd gacmo u furan yani ummadda loogu soo dhoweyn lahaa taasna kulligeen naftayda iyo tiinaba waa ku boorinaynaa runtii waxaan maamulka galmudug oo xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo ay joogaan ayakana waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida ay dowladda federaalka u soo dhoweeyeen u garab siiyeen u garab taagan yihiin ayadana waa ku soo dhoweynaynaa waxaan kaloo sheegaynaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay amniga inay sugaan maahane waxa ciidan oo kale in banaanka laga geeyo caasimadda in laga baxsho oo ciidamada kaleeto oo ku sugan ayadana sidaas waa lagu ballamay biidnillaahi alkariim waayo ciidamo gaar ah oo federaalkii ah oo wasiiradu ay ka shaqeeyeen ayaa lagu wareejiyay marka wixii ciidamo oo kale caasimadda iyo banaanka laga geynaya ayakana haddii alla yiraahdo si amnigu oo sidaa loogu talagalo u shaqeeyo